ma laga yaabaa inaad iga aamintid haddii aan ku dhaho waddan dhan oo dhaqaalihiisu sagxadda ahaa waxaa wax weyn ka bedelay dhaqaalihiisii oo kor u soo kiciyey dayn yar oo aan gaadhin $30 oo loo qeybiyey dad dhowra oo kala duwan oo dan yar ah. Daynta la siiyey dadka kuma xidhna wax shuruuda, kuma xidhna wax bangiya ah ama wax damaanada, keliya waa aaminaad. waa hal shay oo waddan dhan dhaqaalihiisa wax badan ka bedeshay. qisadani waxay ku saabsan tahay nin la yidhaahdo Maxamed Yunus oo u dhashay waddanka Bangladesh. dayn $27 ayuu wuxuu qaybiyay dhowr qof oo dan yara. taariikhdu waqti saa usii fog maaha 1974. waddanka Bangladesh waqtigaasi waxaa ka jiray macaluul iyo abaar iyo dhaqaale xumo aad u baahsan, weliba meelaha aan magaalooyinka ahayn magaalada ka baxsan. dadku maalinta oo dhan si adag ayay u shaqaynayaan, subaxda ilaa habeenkii way shaqaynayaan, laakiin faqriga iyo gaajada kama baxayaan. sababtuna waxa weeye meel ay lacag ka helaan ma jirto. lacag sideedii oo wax ku iibsan karaan meel ay ka heli karaan ma jirto. bangiyada waqtigaasi dalka ka jira Bangladeshna waxaa jira shuruudo sida caadiyan bangiyada adduunka oo dhan ka jira. qof faqiira ama qof aan damaanad lahayn lacag lama siinayo. marka haddii ay lacag waayeen dadka masaakiinta ah ama aan hantida lahayni ganacsigooda ma shaqaynayo. haddii ganacsigooda shaqayn waayana noloshooda ma soconayso. haddii nolosha socon weydana dabin bay ku jiraan markaas. Maxamed Yunus oo aan ninka qisadani ku saabsan tahay ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo meel baadiye ah maraya ayaa wuxuu arkay dumar masaakiin ah oo shaqaysanaya. dumarkan waxay samaynayaan kuraasi ama gambadho ay ka samaynayaan geedka la yiraahdo bambooga ama in qasab la yiraahdo filaya af Soomaali ahaan. marka dumarkani geedkaasi waxay ka samaynayaan kuraas ama gambadho. gambadhadaasi iibinayaan, laakiin wax faa'iido oo ay samaynayaan ma jirto. dhibaatada haystana waxa weeyaan dumarku waxay tagaan meel magaalada ah, magaaladana waxay kasoo deyntaan lacag dad shakhsiyaad soo siiyaan, laakiin deynta la soo siiyo waxaa la saaraa dulsaar aad u badan. dumarkani lacagta markay iibiyaan kuraasida ay ka heli lahaayeen faa'iidadii intii badnayd dadkii deynta soo siiyey ayaa dib uga qaata. Maxamed Yunus wuxuu sameeyey dumarkii markuu arkay dhibaatada ay ku sugan yihiin, jeebkiisa wuxuu ka soo saaray lacag $27. $27 wuxuu u qaybiyay 42 haweena oo markaas sidaas ku shaqaysanayay. lacagtii ay deynta ahayd ayuu u qaybiyey, wax shuruudo ah ama warqado ahna kama uusan qorin, kaliya wuu aaminay. laakiin wax la yaab laba dhacay. dumarkii magaalada tageen, waxay u baahnaayeen alaabahay u baahnaayeen si kuraasta u sameeyaan bay soo iibsadeen. markii ay shaqeeyeen waxay soo celiyeen lacagtii deynta ahayd, laakiin isagu halkii kuwa kale faa'iido badan ka saaranayeen oo dadkaasi faa'iido heli lahaayeen ay ka qaadan jireen, isagu deynta uu siiyey wax faa'iido ama wax dulsaara ma uusan saarin. laakiin arrinka la yaab kale wuxuu noqday dumarkii 42 ahaa dhammaantood lacagtii deynta ahayd way soo celiyeen. ficilka ayar ee kalsoonida leh Maxamed Yunus wuxuu ku dhaliyay arrin la yaab leh. markuu arkay dumarku siday u soo celiyeen dhammaantood lacagtii deynta ahayd, wuxuu arkay dhibaatadu inaysan ahayn faqriga ee ay tahay systemka meesha ka jira. sidaasina wuxuu ku bilaabay inuu furo bangi. bangigana wuxuu ugu talagalay dadka masaakiinta ah ee shaqaysanaya ama garab raratada sida kuwa alaabaha yar iibinaya, kuwa alaabta soo iibsadaan si iibinaya, sida kuwa haddana kale kuraasida sameynaya, dhirta ka sameynaya, inuu lacag yar deymiyo, wax dulsaarana aanu saaran, wax shuruudo ahna aanu ku qorin. waa halka uu ka soo unkamay bangiga caanka ah ee Grameen Bank oo ilaa hadda waddanka Bangladesh ka shaqeeya. bangigani wuxuu awood u saaray dadka masaakiinta ama danyarta inuu lacag siiyo isagoo wax shuruudo ku xidhayn, wax damaanad uga baahnayn. dadka oo dhan way la yaabeen aragtidiisa, waxayna ku tilmaameen mid caqli darro ama doqonnimo. xataa bangiyadii waddanka markaasi ka shaqeynayay dhammaantood way ku qosleen. laakiin wax la yaab la ayaa dhacay. dadkii lacagaha qaatay dhammaantood lacagihii deynta ahaa way soo wada celiyeen. lacagihii ay qaateen iyadoo wax damaanada aan laga qorin waxay ku furteen ganacsi yar yar, qaar alaab bay kusoo iibsadeen, alaabtii sii bayna faa'iidooyin ka raadiyeen, wax dulsaara ma saarna. lacagtii dhammaantood sidii bay kusoo celiyeen. marka ay lacagta soo celiyaan lacag kala la siiyaa, kuwo kaloo dan yar yimaada lacag kala la siiyaa, wax shuruudo laguma xidho. wuxuu meesha ka saaray damaanadii ama qofka taajirka ama qofka damiin ama hantile in lacag la siiyo, qofka faqiirka la aamini waayo. ayar dadkii deegaanada baadiyaha ama magaalada ka baxsanaya waddankaasi Bangladesh dhaqaalahoodii ayaa ayar kor ugu soo kacay oo soo fiicnaaday. deyntii yarayd ee ku bilaabatay $27 waxay isu bedeshay balaayiin dollar. dalkii Bangladesh oo dhanna bangigii Grameen Bank uu ku fiday. dadkii shacabka ahaa ee danyarta ahaana
waxa u suurta gashay marka dambeysay inay noloshooda faqriga ka soo baxdo oo dhaqaalahooda soo roonaado ilaa ay gaadhay in bangiyo kale oo cusub ay qaataan aragtidii Maxamed Yunus oo iyaguna ay sameeyaan shuruudo ah in qofka la siiyo lacag laakiin aan shuruud lagu xidhin meeshii shuruudda laga xidhay ay ka saaraan shuruudda meesha bangiga ninkan sameeyay ee Grameen Bank ee ka soo bilowday $720 oo uu qaybiyay 42 dumar oo aanu aqoon kalsoonina uu ku qabay in lacag soo celin doonaan soo celiyay maantana bilaayin dollar bankiisu gaadhay bangigu wuxuu yeeshay sharaf caalami ah ilaa la siiyay abaalmarinta nabadda adduunka ama Nobel Peace Prize qisadani kuma saabsana lacag laakiin waxay ku saabsan tahay aaminaadda ama kalsoonida qofka adduunka ugu faqiirsan ama bilaa caawinada cid caawisa aan haysan haddii la siiyo kalsooni waxa uu baahan yahay haday tahay alaab ama haddii ay tahay lacag haddii la siiyo lagu kalsoonaanayo waxay muujinaysaa in qof kasta uu guuleysan karo mushkiladuna aanay ahayn faqriga ay tahay kalsoonida ama systemka marka dadkaasi ay ku nool yihiin in qofku guul gaadho ama uu ka baxo duruuftii markaasi ku hararisneed kuma xidhna kaliya in lacag fara badan la siiyo marka qaar waxay ku xidhan tahay qofka oo la aamino wax yarna uu kalsooni dareemo sidaasina qofku wuxuu ku gaari karayaa si aan lacag fara badan la siin inuu ka baxo dhibaatadii markaasi naftiisa ay ku jirtay sidaasina uu kalsooni iyo xasilooni dhaqaale ku helo haddii ilaa halkan la soo gaadho waxaan ka codsanayaa muuqaalkan aad like saartid sidoo kale channelkana soo raac nabadgelyada